wafdi uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Qatar Sheikh Mohammed bin Abdirrahmaan bin Jassim Al Thani sidoo kalena uu qayb ka ahaa wasiirka wasaaradda gaadiidka isgaarsiinta iyo dekedaha ee dowladda Qatar ayaa maanta soo gaaray magaalada Tani Muqdisho. ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qatar iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay wafdiga. waxaana wafdiga uu hogaaminayay wasiirku ay kulan gaar ah xafiiskiisa kula yeesheen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre. shir jiraa'id oo ay si wada jir u qabteen labada wasiir ee dekedaha waa Soomaaliya iyo Qatar ayaa waxa ay sheegeen in ay si rasmi u bilaabmi doonto dhismaha dekada Hobyo ee gobolka Mudug. runtii sharaf weyn ay noo tahay maanta in aan marti gelinayno runtii wafdi ka socda dalka Qatar oo runtii kulan taariikhi ah ay la qaateen ra'iisul wasaaraha. waxaan runtii aan halkan aan ka dareemaynaa hawlihii hore u socday mudane ra'iisul wasaare oo bishii July aan ku tagnay Hobyo iyo Baraawe oo aan uga hadlaynay dhismaha arrimaha ku saabsan dekadaha iyo wadooyinka dalka Soomaaliyeed ma lagu horumarinayo dhaqaalaha iyo isdhaxgalka inay runtii ay arin bilow wanaagsan ay tahay. maantana aan arkayna inay noo yimaadeen madaxdii ama mas'uuliyiintii ka socday dalka Qatar si ay hawshaasi u hirgeliyaan ama ay u dhameystiraan hawlihii hore loo bilaabay haddii ay ahaan lahayd wadooyinkii la bilaabay hadda dhismaheedii socda. haddana waxa inoo socda maanta ay u socdaan wafdigaani in ay marka ay soo bandhigaan goorta aan ku haminayno in aan bilowno dhismaha dalka dekada Hobyo oo runtii ahmiyad weyn inoo leh dhinaca dhaqaalaha iyo xiriirka soo jireenka inuu la wada leenahay dalka Qatar taasoo runtii xiriirkaasi ay badin doonto dhinaca shaqo abuurka dhalinyarada ama horumarinta bilicda wadanka ama horumarinta dhinaca shaqaalaha ama shaqo abuurka dalka taasoo runtii ahmiyad weyn inoo leh. sanadkii la soo dhaafay ee 2018 ay dawladaha Qatar iyo Soomaaliya waxa magaalada Dooxa ee dalka Qatar ay ku kala saxiixdeen heshiisyo horumarineed oo ay ka mid tahay dhismaha dekada Hobyo. waxaana xilligaasi wasiirka dekedaha ee Qatar oo kulan gaar ah la qaatay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ballan qaaday in dawladda Qatar ay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabi doonto mashruuca dhismaha dekada Hobyo. Shamsa Cabdirrahmaan Maxamed wararka TV-ga SDN magaalada Muqdisho.